barnaamijkeena saake waxaan idinkugu hayaa qodobo aad u xiiso badan iyadoo wararkii ugu dambeeyay ay warbaahinta saake ay ka hadlayeen aynu idinkaga soo ururinay. haddaba wararka saake aan idin hayo waxaa ka mid ah arrin la yaab leh oo ka dhacday xuduudka u dhaxeeya Gaza iyo Israa'iil. talow maxaa ka dhacay baad isleedahay halka sheeko cajiiba warbaahintu saake ay aad u hadal hayso ayaan idin hayaa. waxaa sidoo kale barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa Mareykanka iyo Iiraan oo rajo ka muujinaya wadahadaladii dhexmaray iyo kuwa soo socda in natiijo laga gaari doono, iyo Israa'iil oo ka walaacsan inay heshiis gaaraan Mareykanka iyo Iiraan. talow maxay rabtaa Israa'iil iyana barnaamijkan ku faahfaahin doonaa. waxaa sidoo kale barnaamijkan idinkugu haynaa ciidanka Israa'iil oo xalay roondo ku marayay meel ku dhow xuduudka Masar oo rasaas lala dhacay. haddaba yaa la dhacay rasaasta, maxaase soo gaaray? warbixin baan iyana idinkaga hayaa. qodobada ayaynu saakii barnaamijka subaxnimo ku faahfaahinaynaa. inta aanu ku jirno barnaamijka haddii warar cusub ay soo kordhaana waan idinla socodsiin doonaa. Safari Remit waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay. ilaa iminka wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxaa ka mid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Suudaan, South Sudan, Tanzania iyo Turki. qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada. xawaaladan waa online. internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo boqolaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah. dhammaan bulshada waxaa lala socodsiinayaa gaar ahaan magaalada London in xarunta dhinaca caafimaadka ee French and Overseas Clinic ay ku taalo meel aan ka fogeyn stationka tareenka ee Baker Street ee bartamaha magaalada London. halkaa waxaa jooga dhaqaatiir kala duwan oo ka daaweynaya cudurro ay ka mid yihiin kuwa maqaarka, kuwa carruurta, kuwa haweenka iyo cudurrada guud. dhaqaatiirta halkaa ka howlgashay ee howlwadanaduba waxay diyaar u yihiin inay wixii caafimaad ay kula qabtaan. kulanti wanaagsan mar kale asxaabay, meel kastoo aad naga daawanaysaan subax wanaagsan. saake waa subaxnimo isniina, taariikhduna ay ku beegan tahay 21 Abriil. waxaynu ku bilaabaynaa barnaamijkeena subaxnimo iyadoo ay noo soo socdaan qodobo xiise leh oo ay ka mid tahay sheeko la yaab leh oo ka dhacday xuduudka u dhaxeeya Gaza iyo Israa'iil. sheekadaasi aad ayay u xiiso badan tahay, way noo soo socotaa. laakiin marka hore waxaynu ku bilaabaynaa Iiraan iyo Mareykanka ayaa la sheegayaa inay horumarro waaweyn ka sameeyeen labadii kulan ee ay ku kala yeesheen Roma iyo Cumaan oo ay kaga hadlayeen arrinta hubka nuclear-ka looga shakisan yahay Iiraan inay samaysanayso. haddaba iyadoo sheekooyinkaasu ay socdaan ayaa dhanka kale waxaa la sheegayaa Israa'iil in walaac fara badan ay ka muujinayso horumarka la gaaray, oo macnaha Iiraan iyo Mareykanka isfahamkooda way ka xun tahay. waxay rabtaa lagu leeyahay in lagu kala tago meesha oo Trump uu bilaabo inuu duqeeyo iyaduna dhankeeda ka duqeyso oo xaaladu dhan isla holaacdo. sheeko waalana meesha ka jirta. haddaba marka xagee marka wax marayaan, maxaa soo kordhaya, horumarkan la sheegayo muxuu yahay, wixii laga qoraan idin hayaa. haddaba waxaa leeyahay sabtida soo socota loo balansan yahay inay is arkaan ninka la yiraahdo Witkoff oo ergeyga Trump u qaabilsan gobolka bariga dhexe iyo wasiirka arrimaha dibadda Iiraan wafuud ay kala hogaaminayaan magaalada Masqad caasimadda saldanada Cumaan. laakiin waxaa ka horeyn doonaan leeyahay shir kale oo Arbacada dhici doono loo malaynayo inuu ka dhacayo Geneva, Switzerland, halkaasoo guddiyo farsamo oo dhinacyada ah ay isku sii arki doonaan. haddaba labada dhinacba waxay muujinayaan in horumar la gaaray. haddaba horumarkaasu faahfaahin badan weli lagama bixinin, laakiin waxaa leeyahay isfaham fiican ayaa socda. toddobaadyada soo socdana heshiis weyna la gaari doonaa, iyadoo Mareykankuna la sheegayo inuu tanaasulaad badan u samayn doono Iiraanna iyaduna ay tanaasuli doonto. waxyaabo badan ayaa isku soo dhadhawaadaan le. inkastoo dhinacyadu ay ka gaabsanayaan ay leeyihiin faahfaahintu way soo bixi doontaa. laakiin sheekada la yaab kale waxay tahay Israa'iil warbaahinteeda ayaa waxay leedahay, weliba hay-adda wararka u faafisa Israa'iil ayaa waxay leedahay walaac fara badan ee Israa'iil ka qabtaa sheekada. Mareykankuna wuxuu leeyahay war annaga sheekada ku jirna iska joog adiga. markaas waxay leedahay anigu walaacan ka qaba arrintan. Mareykanku inuu tanaasul badan sameeyo aan ka cabsanayaa.
oo tanaasul hadduu sameeyo tanaasul la'aana meesha marka la isugu imanayay iiraanna waxbay ka tanaasuleysaa maraykankana waxbuu ka tanaasuli doonaa marka walwalka haya iyo israa'iil muxuu yahay haddaba dadka wax falanqaynaya waxay leeyihiin israa'iil waxay ka walwalsan tahay maraykanka tanaasulkan ay ku celcelinayso inuu sameeyaa ka baqaynaa ah in nuclearka ay haysato la yidhaahdo isaguna waa laga qaadaa gobolka oo gobolka wuxuu noqon doonaa meelaan hub nucleara lahayn iyo maaragtay sheekooyin kale iyo in diblomaasiyadii iyo xiriirkii uu soo ceshadaan maraykanka iyo iiraan oo halkaa ay ku dhammaato qorshihii baalkii netanyahu iyo kooxdiisu ay maleegayeen muddo oo ahaa inay mar weeraraan iiraan waxaa dhanka kale iyana dadka kale ay qabaan fikrad kale oo taas xoogaa ka duwan oo ah in arrinta tanaasulka uu ka imanayo in iiraan loo daayo nuclearkeeda oo macnaha si nabadgelyaa midka ah ay samaysato oo korontada ka dhashato oo howlo badan ka qabsato laakiin hub aysan gaarsiinin laakiin nuclearkeeda caadiga u dhisnaado taasna wadnaqabadka ugu weyn israa'iil waa leeyahay mar kasta oo iiraan ay u baahato hadhow hubay u bedelan kartaa marka dhowrkaa arrimooda laysla dhex maraya laakiin dhinacyadu weli wax sira oo ay faafiyeen oo ay miidiyaha la wadaageen ma jirto laakiin waxaanu la arkayaa qaylada israa'iil ka baxaysa la arkayaa marka wararkaas waa arki doonaa wixii ka soo kordhaa sheekadii cajiibka ahayd way noo soo socotaa sheeko la yaab leh baata aniga laftirkeyga waan la yaabay ayaa noo soo socota oo ka dhacday xuduudka Gaza iyo Israa'iil laakiin markan waxaan ku hormaraynaa war cusub oo goordhow aan arkayo soo dhacay wuxuu leeyahay 720 qof oo xildhibaan ah oo dawladda Faransiiska baarlamaankeeda ku jira macnaha 720 xildhibaan oo baarlamaanka Faransiiska ku jira oo Israa'iil fiiso weydiistay toddobaadyo ka hor oo loo ogolaaday fiisihii la siiyay ayaa 48 saacadood markay ka dhiman tahay safarkooda ayay Israa'iil kansashay ma noo imaanaysaan tiri shalay oo 20 ahayd galinkii dambe inay baxaan ay ahayd waa laga kansalay fiisooyinkii wixii oo dhan way yaabeen sababtu maxay tahay leeyihiin Israa'iil marka waxay taagan tahay dadkanu Israa'iil ma jeclano ma imanayaan 720 xildhibaan oo xaqiiqa raadin u socday oo halka inay tagaan rabay oo Israa'iil inay la hadlamay xanaaqa maxay sababtu maxay tahay Netanyahu wuxuu u xanaaqsan yahay hadal uu sheegay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron muxuu ahaa Falastiin aqoonsan doona bisha June sidee u dhihi kartaa hadalkaas wax xildhibaan oo Faransiis xaqiisa nooga iman kara male 720 xildhibaan marka waxay yiraahdeen haddii naloo diiday dhib male saacadaha soo socda waxaan qaban doonaa shir jaraa'id waanu kaga hadli doono Israa'iil tacadiyada ay sameynayso iyo inay diidan tahay in wufuud caalami ah gaar ahaan reer galbeedka inay tagaan halka way diidad marka sheekadaas Faransiiska iyo Israa'iil way u tuuratahay arikaana waa qasan yahay sheekadii wali waa noo soo socotaa laakiin waxaan ka hormarinaynaa arin kale oo muhiim ah oo soo korortay Xuutiyiintu waxay sheegeen in 12 qof ay markaa dhinteen dhowr iyo 30 kalena ay ku dhaawacmeen weeraro saacadihii la soo dhaafay Mareykanku ay ka geysteen magaalooyinka waaweyn ee waddanka Yemen oo ay ka mid tahay Sanca iyo gobolka Sacda iyo Ma'rib iyo meelo kale oo ay yiraahdeen halka ayaa duqeymo Mareykanku ka sameeyeen dhanka kale warbaahinta Xuutigu waxay ku celcelinayaan haddii la isku dayo weerar dhulka ah oo Mareykanka uu qorsheynayo in la eedi doono horeyna barnaamijyadeedu waxaan ugu sheegay kii xalay in markaa Sacuudiga iyo Imaaraadka digniin loo diray oo la yiri haddaad isku soo faragashataan arrimaha dhulka Mareykanku maleegayo oo Yemeniyiin aad soo habaysaan si ay noola diraan waxa idinku dhaco waa la yaabi doonaa marka maadaama Xuutigu ay arinka ku celcelinayaan waxa leeyahay qorshe Mareykanka uu maagan yahay waaye in weerar dhulka ah lagu dayo Xuutiga maadaama waxba looga qaadi waaye weeraradii cirka oo hubkoodii iyo waxoodii ay wali haystaan qodobka isaguna uu soo kordhay halka kaga gudbaynaa qodobka kale ee barnaamijkeena saakay aan idinku soo gudbinayo wuxuu yahay waxa la leeyahay saakay xalay saacadu markay ahayd 9 ama 21 markay ahayd xilliga dalka Masar xuduudka u dhaxeeya Israa'iil iyo Masar ciidamo Israa'iiliyiin oo halka roondo ku marayay in rasaas oo dal looga qaaday warbaahinta Israa'iil saaka way ka hadlayaan
israa'iil ciidankeedu waxay leeyihiin way dhacday arrinkaa laakiin wax isaabaada ama dhaawacyo ah oo na soo gaaray ma jiraan laakiin baaritaan aan ku haynaa waxa rasaasta nagu soo furay ma ciidanka masaarida ma qolo kaloo meesha dhexe soo gashaa lama yaqaano masaaridana ilaa hadda waxaa leeyahay wax wara oo ay ka soo saartay arrinkaa ma jiro laakiin waxaa leeyahay rasaas xoogan ayaa ciidanka israa'iil lala dhacay qadar xayeysiisha kadib waxaan u gudbaynaa sheekada khatarta ah ee soo korortay lala yaabay ee ka dhacday xuduudka u dhaxeeya gaza iyo israa'iil saacadihii lasoo dhaafay waalidiinta magaalada muqdisho ku nool waxaa loo hayaa war farxad leh